qorrax dhaca noloshaada maxay ka dhigan tahay maxaa dhaxal ah oo aad ka tegi doontaa waase maxay ujeedada aad u nooshahay waxaan ku noolahay jiilka aniga qiimeedu wuxuu ku salaysan yahay taageerayaashayada Instagram-ka iyo YouTube-ka haddii aan calaamadda saxda ah lagu saarinna waxaa hubaal ah inaad luminayso indhaha bulshadan raqiiska ah aynu ugu yeedhno xadaarad haddii akoonka bangigaagu aanu kuu xidhnayn waxaa tahay qof guuldaraystay haddii aanad caan ahayn codkaagu macno ma leh haddii dharka aad xidhan tahay aysan ku dheganayn amaba ku qornayn calaamado qaaliya waxaad u baahan tahay inaad guriga ku hayso hundhaydan bilaa qiimaha ah haddii taayarka gaarigaaga aysan la imaanin qiimo istiikaro weyn kula dhegan waxaad u baahan tahay inaad ku hayso gaarigaaga duugga ah garaashka waxaan ku qiimaynaa nolosheenna qiimaha waxa aan haysanno waad aragtaa waxaan ku dhex noolnahay jiil mid weliba saxan yahay balse aysan ahayn qofna kuu sheegi maayo inaadan shahaadadaas weyn u qaadan karin nolosha xigta inaadan lacagtaas guri kaga iibsan karin jannada iyo farxadda dhulka toona miyaad og tahay dhammaanteen si isku mid ah in laynoo abuuray waxaa laga yaabaa inaad gaaban tahay waxaa laga yaabaa inaad dheer tahay laakiin dhammaanteen waxaan ku dhammaanaynaa god 6 mitir oo qoto dheer waa markii aniga iyo adiga aan noolaan lahayna nolol micno leh waxaa la gaadhay wakhtigii aan dib u riixi lahayna beenta qarnigan beenta noo sheegaysa in magacaaga lagu dhajiyo boodhadhka ama laga laalaadiyo nalal dhalaalaya mooye aanan waxba ahayn beenta inoo sheegaysa in maalqabeenka iyo dadka caanka ahi keliya ay mudan yihiin in la maqlo beenta noo sheegaysa in dadka caadiga ahi aanay noqon karin dad wax curiya iyo dhexdhexaadsiga in macnaheedu yahay murugo halka dhab ahaantii macnaheedu tahay xorriyad waxaad arkaysaa mar kasta oo ay bataan waxa aad haysato waa mar kasta oo adiga waxa kugu dheggan ay badan yihiin markaad adduunka ka tagto dadku ma xasuusan doonaan alaabtii aad lahayd baabuurtii aad wadatay dadkii baraha bulshada kaala socday iyo dharkii aad xidhnay waxay xasuusan doonaan dareenkii la jirkaaga waxay xasuusan doonaan ereyadii dheerigelinta ahaa iyo dhoolla-caddayntaadii quruxda badnayd wax badan dhiirigelin badan jacayl badan dhoolla-caddayn badan farxad badan in badan iyo in ka badan kuwaasi waa waxyaalaha kuwaas oo sii jiraya inta ay nool yihiin iyo weliba jiilalka ka dambeeya maalinta qorraxdaadu dhacdana waxaad noolaateen nolol waxtar leh